kani waa muuqaalka Muqdisho waa uu ka duwan yahay sidii uu ahaa sanado ka hor dhismooyin dhaadheer ayay caasimadu ku talowday taas oo magaalada siinaysa qurux iyo muunad ay u hamuun qabtay arintaas ayaana loo aanaynayaa amniga magaalada ee soo hagaagaya bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacayga ku bilaabay Cabdicasiis Cali Faarax dhismaha dirtaan ka shaqeynayo iyo magaalada bilicdeeda aad iyo aad u horumarayso ما شاء الله تنولشيدا دي aan ka hadlayna mid aan ku qanacsanahay kani waa dabaq ka kooban 7 biyaano waxa laga dhisayaa gudaha magaalada Muqdisho kuwani waa shaqaalaha Soomaali iyo ajaanib isugu jira oo ka shaqeynaya dabaqan waxayna ku faraxsan yihiin xilligan inay ku guda jiraan halmalahooda shaqo dhismaha markii la magaalada waa la socotaa magaalada waa la dhisayaa waxa kordhaya quruxda magaalada kordhaysa guriyeen badan magaalada ku weyn loo soo kordhinaa dhisnay hadda mid kaan dhisayna arkiis qofna ma rumaysanayo isbedelka dhanka dhismaha ah ee ka socda Muqdisho iyo sida dadku ay ugu tartamayaan in magaaladu ay noqoto meel ku wanaagsan dalxiiska dhismahan waxa uu ka mid yahay kuwa ugu dhaadheer Soomaaliya waana habka casriga ah ee hadda laga dhisto caalamka dhismaha kordhaya ee Muqdisho waxa uu sidoo kale dhiirigelin u noqday dhalinyarada wax ku bartay dalka oo iyagu aaminsanaa in gudaha dalka aysan ka heli karin fursado shaqo shirkadda Amana Engineering and Construction Company waxaan ka shaqeeyaa mashruucan aad u baaxad weyn oo aad arkaysaan oo lagu magacaabo Leader Hotel oo ah 5 star hotel ama 5 star hotel oo adduunyada hoteelada hadda casriga ah waxaan saaranahay dabaqa ugu dheer Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay dhismihiisu 13 biyaano waxa uu ku yaalaa agagaarka xeebta Liidana waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee uu ka socdo dhismaha casriga ah ee magaalada Muqdisho laga dhisayo daaraha ugu dhaadheer Soomaaliya